Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Ma isku aragtay caado wareer taasoo ku imaan karta siyaabo kala duwan sida inay kala fogaato 35 maalmood iyo ka badan u dhaxaysa, iyadoo isku soo dhawaato adigoo bishii 2 jeer iyo ka badan isku arka, iyadoo muddadeeda dheeraato taasoo dhiigbax keeni karto, ama iyadoo la waayaba 3 ilaa 6 bilood in ka badan. Haddii aad ciladaas isku aragtay, casharkan adigoo kugu socda ay ka faa'iideyso lana wadaag bulshada. Magacaygu waa Dr. Mahdi, waxaan ka mid ahay dhakhaatiirta ka howlgasha isbitaalka East End. Caado wareerku waa xaalad aad u badan, boqolkiiba 30 dumarku way ka sheegtaan, waxayna ku imaan kartaa 4 siyaabood ee aan kor ku soo xusay. Asbaabaha ugu badan ee keena caado wareerka waa waxyaabo dabiici oo aan cudur ahayn, waxaana ka mid ah 1. Diiqada, walwalka, cabsida iyo naxdinta. 2. Caadada marka ay cusub tahay waxay qaldantaa dhowr bilood inta ay ka toosayso. 3. Cunno xumida iyo matagga joogtada ah. 4. Jimicsiga siyaadada ah oo la joogteeyo sida haweenka ciyaara sportska. 5. Daawooyinka qaar sida kuwa uurka looga hortago. 6. Cabsi uur ama qofka ka walwala inuu uur qaadi waayo. 7. Cabidda sigaarka, khamriga ama maandooriyaasha kale. 8. Naas nuujinta. 9. Xilliga hore ee marxaladda dhalmo-deyska. 10. Haddii aad xiran tahay qalabka uurka ka hortaga. 11. Miisaankaaga oo si dhaqso ah u kordho ama u lumo. 12. Haddii mar dhow aad dilantay ama lagu soo xaaqay. Intaas aan kor ku soo xusay waa asbaabo aan cudur ahayn laakiin weerariya caadada. Waxyaabaha cudurka ah oo keeni kara caadada oo weerarta waxaa ka mid ah 1. Xaaladaha uu kacsan yahay ama uu dhacsan yahay qanjirka thyroidka. Fadlan bogga ka soo daawo muuqaaladii aan ka sameeyay thyroidka ee cudurrada ku dhaca. 2. Caabuqa ku dhaca minka, tubooyinka ama ugxan-sidayaasha. 3. Khalkhal ku dhaca hormoonnada la shaqeeya ama saameeya caadada. 4. Haddii aad qabtid xanuunka ugxan-sidaha fiixda leh, afka qalaadna lagu dhaho polycystic ovary syndrome. 5. Gidaarka raximka oo barara, afka qalaadna lagu dhaho endometriosis. 6. Ugxanta oo daciifta. 7. Haddii aad qabtid cilladaha dhiigbaxa keena, taasoo keeni karta in caadadu aysan waqtigeeda ku istaagin. 8. Kansarada ku dhaca minka ama ugxan-sidayaasha. Sida caadiga ah, haddii caadada la waayo xilligeeda, waxa ugu horreeya oo lagu fakaro waa inuu uur jiro. Haddii uusan uur jirin, waxaa muhiim ah in qofka lagala taliyo waxyaabaha sida dabiiciga ah u keena caado wareerka oo aan kor ku soo xusay. Hadduu qofku qaato daawo caadada saameyn karta, waa in lala socodsiiyo, cunno dheellitiran lagula dardaarmo, walwalka iyo walbahaarka laga yareeyo, jimicsiga siyaadada ahna laga fogaado. Haddii aadan xanuun isku ogeyn, dhalmo goys aadan gaarin, cunnadaadu isku dheellitiran tahay, jimicsi siyaada ahna aadan sameynin, kadibna aad isku aragtid caadada oo kaasoo daahda ama kugu soo dhaqsata, waxba ha walwalin. Waxaa laga yaabaa in isbeddel hormoonnada iyo shucuurkaaga uu jiro, ama walwal ama cillado kale oo saameyn kara caadifadaada. Laakiin haddii aad isku aragtid astaamo xanuun kale oo la socda caado wareerka, ama caadada oo weerarsan muddo 3 bil ku dhow, waa inaad baaritaan guud isku sameysaa adigoo la soo xiriira dhakhtarada haweenka si laguu baaro, wixii jirana loo ogaado. Waxay dhakhtaradu kuu diri kartaa dhiigag xagga hormoonnada heerkooda lagu ogaado, kombiyuutar minka, tubooyinka ugxan-sidayaasha, cad in laga qaado minka haddii barar laga shakiyo, ama qalab kaamiro oo gudaha lagu fiiriyo. Waxaa jiro dhowr waxyaabood oo dabiici ah oo loo isticmaalo arrintan, waxaana ka mid ah 1. Sanjabiilka oo shaah laga dhigto wuxuu yareeyaa xanuunka caadada, waxaana lagu daaweeyaa caado yarida ama soo daahideeda. 2. Qorfaha isagana wuxuu caawiyaa caado wareerka, waxaana ku jirta maado ka qayb qaadata arrintaas. 3. Sisintu waxay ka mid tahay waxyaabaha qaaliga ah oo jirka ku caawiya soo saaridda iyo habeynta hormoonnada la xiriira caadada. 4. Babaayga oo aan si fiican weli u bislaanin, isagana wuxuu ka qayb qaataa caado soo saarka, waxaana lagula dardaarmaa haweenka caadada ka istaagi rabto. Fiiro gaar ah, isticmaalka talooyinkan waa in la joogteeyaa dhowr bilood si faa'iido looga helo. 2. Ha isticmaalin xilliga caadada aad ku jirtid. 3. Waa muhiim inuusan jirin xanuun u baahan daawo, kaasoo keeni kara cilladda caado wareerka. Halkaas ayaan kaga baxay casharkan. Wixii su'aalaha noogu soo gudbi qaybta comments-ka ee muuqaalkan. Waana mahadsantihiin.